asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada idaacadda KZYSLB oo aad ka dhegaysataan magaalada St Cloud muujada 105.1 dhegaystayaal kusoo dhowaada waa barnaamij kale oo aan uga hadlayno xanuunkan coronaviruska waxaa halkan ila jooga dad aad intii hadda arrimahan ay socdeen qayb lixaad la ka qaatay in ay bulshada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada St Cloud ee gobolkan Minnesota ay wacyigelin ay u sameeyaan waxaa halkan ila joogta Hani Jacobson iyo Hudo Daoud oo labadoodu Hanina ay ka shaqeyso cisbitaalka Center Care Hudana ay ka shaqeyso Stearns County qaybta caafimaadka dadweynaha sidoo kale maanta waxa barnaamijkan nagu weheliya Kaahin Adam oo isaguna ka tirsan bahda Center Care ka tirsan oo isaguna maanta si gaar ah uga hadli doona xanuunkan coronavirus iyo siyaabaha uu u saameyn karo xagga maskaxda xilligan la joogo dhamaantiin markale ku soo dhawaada aad baan idinka mahadcelinayaa inaad barnaamijkan nagala qayb qaadataan iyo wacyigelinta bulshada Soomaalida iyo bulshada dhammaan ku dhaqan magaalada St Cloud wixii afka Soomaaliga fahmaya raadiyaha dhageysta marka ugu horeysa barnaamijkan waxa maanta ku cusub oo markii koowaad nagala soo qayb galay Kaahim ku soo dhawow barnaamijkan bal dadka dhageystay idaacadan KZYSLB anagoo ku soo dhaweyn magaalada St Cloud waxaad uga warantaa shaqada aad hadda u hayso Center Care aad baad u mahadsan tahay inaad halkan igu soo dhaweysay waxaan u shaqeeyaa Center Care waxaan haystay psychotherapy waxa weeye waxaan sameeyaa mental health therapy marka waxaan caawiyaa dadka waxyaabaha xanuunada dhimirka u saameeyay ayaan caawiyaa on inta badan la shaqeeyaa ta kale waxaan bartay public health researchina waan sameeyaa markaad eegto public health and mental health waa laba fiilo ma aragtay laba maado waxa weeye haddaad eegto in a way isku mid ah oo waxyaabo badan oo ma aragtay midna wuxuu focuskiisu waxa weeye caafimaadka bulshada kalena waxa weeye caafimaadka maskaxda iyo xanuunada dhimirka la xiriira marka shaqadeedu waxay u badan tahay inaan caafimaadka bulshada iyo wacyigelinta caafimaadka bulshada gaar ahaan caafimaadka maskaxda dadkana mataqaanaa qofkii u baahan inuu ila kulmo ila hadlo waxaan u sameeyaa saacad therapy aan u sameeyaa xafiiskayga yimaadaan waxaan malaynayaa baahi xoog leh ayaa ka jirtay magaaladan St Cloud waan ogahay muddo badan oo ku noolaa in la helo qof aqoontaas oo kala leh maadaama ay jiraan dad siyaabo fara badan ay u soo saameeyeen dagaalaadka ka dhacay Soomaaliya iyo shidooyinkan caalamka taagan iyo saamaynta ay ku sameeyaan maadaama qofku dhaqanka fahmayo dadka kale ajnabiga ay dhaqan fahmi kareen bal aan dib kuugu celiyo bal Soomaalidu waxa laga yaabaa sida aad adigu iskuulka lagu soo baray iyo xanuunaadka dhimirka ee maskaxda inay si kala duwan u yaqaanaan maxaad nala wadaagi kartaa qaar ka mid ah xanuunaadka dhimirka ee dhibaato ku haya maanta mujtamaca guud ahaan halkan Mareykanka horta mushkiladda Soomaalida haysata waxa weeye dhaqankeena markaad eegto Soomaalida mental health-ga sida mataqaanaa wadamada reer galbeedka ay u daweeyaan weli aqoon baa inoogu laaban oo Soomaalidu aqoon badan uma laha luqadda Soomaalidana kuma jiro kelmad loo isticmaalo ama lagu fasiri karo depression oo kale ma jirto oo taasi ma dhibaato weyn baa ka haysta dadka mataqaanaa ka shaqeeya fiilkan dhibaato weyn ama Soomaali ha noqdaan ama yana noqon dhibaato weyn baa ka haysta maadaama haddii aanad luqadii aad ku turjumi lahayd ama aad ku sharaxi lahayd xanuunkii aanad garanaynin way adkaanaysaa qofkay ku adkaanaysaa kuwii caawin lahaana ay ku adkaanaysaa qofkii xanuunsanayna way ku adkaanaysaa inuu xanuunkiisii fasiro taasi waa mid talabaad Soomaalida dhibaatooyin waaweyn baa ku dhacay 30 sano ayuu Soomaaliya dagaal ka socday hadda 30 sano intii ku kortay iyo intii ku dhalatay iyo intii ka soo baxdayba intooda badan trauma ku dhacday oo maskaxda dhaawacantay dhaawaca gaaraysa ha kala badnaado oo waxa weeye dadka qaarkood qofba sibuu u saameeyay oo traumadu waxa weeye macnaha waxa kugu dhacay maaha waxa kugu dhacay waxa weeye sidaad adigu u qaadatay hadda waxa laga yaabaa labadeena oo kale Ilaahay kama dhiga xalayna inaan car accident aan shil galna laga yaabaa shilka waxa laga yaabaa inaanu ka soo noqon waayo oo maskaxaan ka soo noqon waayo waxba inaan gaarin baba laga yaabaa laakiin aan ka soo noqon waayo dhaawac maskaxaan ku soo noqdo laakiin adiga waxa laga yaabaa inaad ka soo kacdo caadi noqoto marka waxa weeye inta badan waxa weeye subjective waxa weeye mataqaanaa sida qofku reactionka qofka iyo qofka mataqaanaa siduu
u qaatay ama u fahmay weeyi laakiin inta badan istadiye badan oo la sameeyey 80% ilaa 70% Soomaalida somehow adiga trauma soo gaadhay oo waxbaa soo gaadhay dhaawacbaa soo gaadhay mushkiladda ku dhacdayna waxa weeye markay halkan yimaadeen wadamada reer galbeedka yimaadeen may helin dad aqoon u leh dhaqanka Soomaalida oo Soomaalida daweyn kara marka taasina waa caqabad luqadii lagu fasiri lahaana meesha ma jirto marka bulshadii waxa ku dhacay jahwareer baa ku dhacay marka xataa intayada wax baratay cudurkan baratay weli waxa dhibaato weyn nagu haysa sidii aanu mujtamaca Soomaalida aanu uga caawin lahayn ama u fahansin lahayn xanuunkani wuxuu yahay sababtaasaan hore u soo sheegay luqadii xanuunkan lagu fasiri lahaa baan meesha jireen marka hadda xajira dad badan oo Soomaaliya xanuunkani saameeyay saan u sheegay in oonan fahansanayn baynu xanuunkan hayo hadda mushkiladan jirta coronavirus oo kale waxa laga yaabaa inuu keenay cabsi badan waa arrintan raba inaan u soo gudubno mar gaara ayaan insha Allah waraysi kala kula yeelan doonaa maadaama aad hadda adigu tahay qofkii Soomaaliya ugu horeeyay oo center care ka shaqeeya xanuunaadka dhimirka iyo dadkana sidii dhaawaca maskaxeed ku dhacay looga daweyn lahaa qayb ka qaadanay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo cabsi badan baa jirta hadda xanuunkan hadda taagan oo maanta maraan arkayay jaamacadda Hopkins University oo iyadu marka samaysay qaab lagula socdo caalamka sidoo wuxuu marayay 500 iyo half a million ayuu marayay marka cabsi badan buu dunidii keenay bulshadii Soomaalidana qayb bay ka tahay dadka cabsida ku dhacaysa marka maxaad arrintan oo kale aad idinku ka qaban kartaan wacyigelin inay dadku sidee u fahmaan adalka aad tiri cajiib buu ahaa wax walba oo dhaca waa qofka sida u qaato in cabsi way jirtaa oo cabsidu waxa weeye waa human nature mar kasta oo ay wax dhacaan ibni aadanka mar kasta ay dhibaato dhacdo cabsidu way timaadaa wax caadiya laakiin cabsida kala duwan cabsidu waa mid la xiriidha mushkiladda hadda jirta oo mushkiladda hadda jirta kugu abuurtay oo normal oo caadiya iyo cabsi kale oo waxa jirta oo xanuunka anxiety ama depression ama dhimirku keenaa jira marka qofku inuu kala fahmo labadu mid ka haya ayaa marka hore muhiim ah marka mararka qaarkood waxa dhacda qofkii inuu mushkiladda hadda jirta awgeed cabsi ku abuurantay cabsida awgeed qofku ma taqaana marka u qaatay in cabsidani ay tahay cabsi la xiriidha cudurka dhimirka taasina waxay keentay in dad badan oo Soomaaliya ay hadda dawooyin qaataan ayna u baahnayn sababtoo ah waxay u tageen dad aanan culture-koogii iyo dhaqankoodii midnaba aanan fahmaynin inaga Soomaali haddaan nahay mushkiladu markay dhacaan si gaara ayaanu xalinaa ama si gaaray mataqaanaa aanu u abaarnaa mushkiladaas marka haddii marka waxa dhacda mararka qaarkood in dadka qaarkood ay u tagaan dhakhaatiir aanan aqoon u lahayn dhaqankii Soomaalida iyo sida Soomaalidu mushkiladooda u xaliso dad badan oo Soomaaliyaana hadda sida la sheegay dawooyin qaata ayna u baahnayn marka cabsida kalena waxa weeye cabsidu haddii ay noqoto cabsi cuntada ku diidaysa oo hurdada ku diidaysa oo mayrashada ku diidaysa oo ku diidaysa inaad dadka la xiriidho cabsi aanad fasiri karin wax keenay oo isleedahay okay xataa haddii waqtiyada waxa jira hadda waqtiyada qaarkood waxa laga yaabaa markaad hadda coronavirus oo kale aad akhrido ama TV ka daawatay inay cabsi ku gasho laakiin markaad kaliya TV ka daawanaysid gurigaaga fadhid bulshada ku dhex jirto in wixii aad ilowdaa laga yaabaa haddii marka cabsida ay maskaxdaada ka bixi weydo xataa markaad dadka la joogto ay cabsidaasi kugu sii jirto taasi waxay noqonaysaa xanuunka dhimirka noqonaysaa siyaabaha kamida xanuunka dhimirka noqon kartaa marka dadku inay ogaadaan qofku inuu ogaado oo mataqaanaa waxyaabaha maaragtay dareenkiisa uu la socdo oo haddii qofku markaa uu arko in cabsidani ay tahay cabsi naftiisii khalkhal gelinaysa oo aanu awoodi karaynin inuu cabsida iska saaro waxbay qofku markaa mataqaanaa inuu dhakhtarkiisa la xiriiro weeye uu dhakhtarkiisa si toos oo la xiriiro waayahay waa ku soo noqon doonaa haddii ilaahay idmo kaahin su-aalo muhiima ayaan jeclahay inaan weydiiyo waana jeclaa barnaamijkan inuu qaab life oo kale ay dadku ay u dhegaysanayaan si ay iyaguna ay wax su-aalo ay qabaan
haddii aad su-aal qabtid nambarkayga haddii lahayd waa igala soo xiriiri kartaan si aan su-aalaha mar dambe aan u weydiino. Sidoo kale barnaamijkan waxaa nala jooga Huda iyo Hani oo ka kala shaqeeya Center Care iyo Strange County. idinka naftigeena anoo ku bilaabay Hudo, arinta gaar ahaan maanta aan rabno inaan ka hadlo waxaa weye saamaynta maskaxeed oo uu ku samayn karo dadka xanuunkan. idinku hadda soo far intaad aragteen dadka bulshada maxaad dareenteen inuu culays badan uu ku keenay dadka qaabkay u dhaqmayeen? aad iyo aad wallaahi horta marka Soomaaliya inagu markaan ka hadlayno waxaa jira marmarba waxyaabo aan buunbuuninaayo maad aragtay sidii loogu talagalay xataa qof weyn markaan la hadlayno si naxdin la loo warkii loogu sheegayo waxaad arkaysaa waalidiintii waaweynaayo iswaayo intaasaa dhimatay baa la yidhi halkan magaaladana uu ku soo batay baa la yidhi markaad baxaysiin glovis gashada gaadhiyadii waxaad arkaysaa snapchatka dadka dhan oo gaadhigii ku wada maad aragtay glovis iyo xaqiiqdii laakiin waxaan u malaynayaa dadka Soomaalida oo magaalada ku arka oo glovis ka xiran iyo dadka cadaanka waxaa badan dadka Soomaalida badan aad iyo aad marka waxaa keenaysa cabsida cabsidii baa keenaysa dadkii haddiina aqoon ayna u lahayn maad aragtay aqoon ayna u lahayn sidii loogu hortegi lahaa iyo maxaa la yidhahdaa xanuunkan maxaa keena maxaase as a protection u isticmaala waxa kaliya tee maskaxiyan qofka iska dhaadhicinaya waxa weeyaan wixii ay arkayeen so maxaa laga arkaya social media amba TV glovesidii oo lalaaya ay muxuu ahaa hand sanitizeradii oo dhammaaday wipeyadii wax lagu clean gareynayo oo dhammaaday absidaas keenaysa inuu qof walba yiraahdo gacmihiisa gloves baan gashanaya muhiimadu aan rabo inaan maxaa la ku baraarujiyo waxa weeyaan muhiimadu waxa kaaga muhiimsan oo gacmahaaga saabun ku maydha biyo ku maydha sanitize gareeya sidaas iskaga ilaaliyo bulshadii banaankii iyo socodkii badan iska eliminate gareeya gloves keligii amba maxaa la mask keligii kama ilaalinaya xanuunkan. Okay, waaye Huda haddaan adiga dhinacaagu soo wareego maxaad cusub barnaamijyaanu qabanaynay dhowrkii isbuucii hadda lasoo dhaafay oo raadiyaha aada ugu soo noqnoqdo dad badan ay dhegeystaan maxaa cusub hadday noqoto dhinaca caafimaadka center careka iyo dadka xanuunaadka laga helo deegaankeenna? I can go over the update from MDH. Sure. Okay, so MDH ka hadii aan maxaa la yidhahdaa idinka update gareeyo imika maanta ahaan so maalin kasta 12 subaxnimo ayuu soo baxaa warka cusub ee maxaa la yidhahdaa update kala nagu siiyo maanta wasaaradda caafimaadka Minnesota Minnesota Department of Health maanta 26 bishu tahay saddexaad waxaa laga helay 346 qof ayaa xanuunka laga helay 134na way waxoogaa isolationkii uma baahno way ka soo kabteen xanuunkii maanta qofkii labaad ayaa u dhintay maxaa la yidhahdaa statekeena Minnesota maanta 30 iyo qof 31 people ayaa hospitalized gareeyay amba dhakhtarka la dhigay oo u jiifa xanuunkan gobolkeena haddii aan niisi kala faahfaahiyo gobolada degmooyinka ugu weynays aad u maad aragtay saamaysay maxaa coronavirus waa Hennepin County oo of course waa Twin Cities mataana magaalooyinka mataanaha 128 ama 128 bay maanta maraysaa waxa ku xigta iyadana haddana countiga kale la yiraahdo Ramsey County isaguna waa 32 maanta haddii aan Stearns ka hadalno gobolka maxaa la degmadeena waa 5 qof Benton County oo St. Cloud ka midayna ay degan yihiin oo Benton County ka tirsan yihiin hal qof laga helay Sherburne County-na hal qof laga helay waa guud ahaan dadka xanuunka qaba ee hadda ku nool gobolka Minnesota iyo degmooyinkan waa yahay waxaan rabaa inaan dib ugu celiyo kaahin haddaadan haniyaadan wax ku daraynin intaa ay tiri may haddii oo aan centercare wax updates niga siiyo hadda dad qof kasta lama baarayo because baaritaankii qalabkii dadka lagu baaraya ayaa yaraaday qalabkiina waxaa loo haynayaa dadka high riskiga khatarta weyn oo u geysan kara xanuunka dadka khatarta weyn ku jiro sida dadka caafimaadka ka shaqeeyo ama dadka waaweyn ama dadkii isbitaalka la seexiyo oo dadka isbitaalka la jiifiyo marka waxay leeyihin haddaa calaamado isku aragtid qufaac ama qandho ama waxyaalahaas oo kale oo COVID-19 lagu ogaa self quarantine wax la dhaho waa inaad isku samaysaa gurigaaga qolkaaga iskaga jirtaa si oo dee familigaaga ama caruurtaada ama qof reerkaaga ka mid ah hadduu calaamada isku arko inuu qol isku xiraa for 7 beri
7 days qolka waa inaad iskaga jirtaa. Self quarantine-ka markaa ku jirtid banaanka inaad u baxdid looma baahno, maqaayadii meelaha inaad tagtid looma baahno, family memberskii dadka kula dhashay kulli waa inaad iska wada ilaalisaa. marka waxay haddii nacam wax su-aalo ah ka qabtid ama naqaska kugu dhago ama neefta ay ku dhibto qufacaaga aad xamili weysid nacam qof cunto cuni karin aad noqotid flayboyni waxaa u baahatid markaas waad inaa numberkii triashka oo centricare ah wacdaa si kugu sii diyaar garoobaan isbitaalkii lagu keeno markaa. laakiin haddii waxaan wax aad iska xamili kartid uu yahay markasta waxaa ugu fiican gurigaaga inaad joogtid, dadkii guriga kula degnaana iska ilaalisidoo keligaa qol iskaga jirtid ilaa 7 cisho. haddaan si saxa kuu fahmayey maaldhowd waxaan arkaya qof social mediaha dhakhtar tegey magaalo kale ay ahayd gobolka Minnesota ah oo uu filayo markaa in laga baarayo xanuunka ama dhakhtarka la dhigayo xanuun xun baahayey, laakiin isla markii wuxuu sheegtay cabashadiisa in guriga loo soo diray. marka haddaan si saxa kuu fahmay waxaad leedahay qofkii hadda xanuunsan xataa hadduu xanuunka qabo haddaysan neeftu iyan ku dheganayn cisbitaalka lama siixinayo inuu cisbitaalkana aada maaha. haddii dhibaatadaada ay weyneen oo waxaad isku xamili kartid sida neefta kugu dhegan oo de qalabkii neefta dadka ka caawinaysid waxaas aada u baahneen gurigaagaad iska joogi kartaa, laguma baarayo xitaa haddaa aadid isbitaalka laguma baarayo. dadka la baarayo waxa weyn dadka isbitaalka jiifo, dadka caafimaadka ka shaqeeyo, labadaa uun waayeelka dhakhtarka jiifa. marka haddaad qof dhalinyaro iska tahay oo dee xanuunkii uuna kaa xoog badanin gurigaa iska joogi kartaa, qolaad isku xireysaa, dadka kalena waa iska ilaalinaysaa. waaya dabcan waxaa la diidayaa qalabka oo xadadan hadda wadamada sida talyaaniga oo kale waxa ka dhacay oo kale inay dhacaan dabcan oo dadkii markii loo waayey sariiro cusbitaalaadka derbiyadoodii qaarkood arkaysa ay jiifaan. waxaan rabaa macno kuma dhigayo xanuunkii inaad diagnosis lagu siiyo because dawo ma leh, so hadduu xataa lagu baadho oo lagaa helo gurigun baa lagu soo diraya, so it's just a waste of time. maxaa dhada spreadkii iyo xanuunkii intii qofeed la kulmantay qofkii dhakhtarka ku geeyey kii dadkii transmissionkii. laakiin adigoo xataa aan dhakhtarka tihiin ma jira number uu qofku uu wici karo oo u sheegi karo sida loo hayo oo markaa u sheegi kara inuu xanuunka aadlista qabo ama loo malaynayo inuu qabo. lambarkii oo baryahan dhan aan bixinayna weeyaan waxaa weeyaan 3-2-eber xaggaas waxaa kugu diyaar ah kalkaaliyo oo waxaan ku takhasusay iyo turjubaan oo isla markii kula hadlayo oo sidii kuugu haboon aad samayn kartid waqtigaas. marka calaamadaha markaa u sheegtid way ku oran karaan xanuunkii baa laga yaabaa inuu yahay waa inaad iskarantiishaa, waa inaad qol isku xirtaa. markaad u baahantahay isbitaalka inaad aadid waa mardee aad liidatid oo xanuunkii aad xamili karin. waayahay haddaan axmed oo kuguna darsado annagana Stearns County hadda hotline baan leenahay oo maxaa la yidhahdaa dadku nagala soo hadli karaan soomaalida. marka waxaa jooga iyo annagana xaggaa waxaa jooga public health nurse ku takhasusay bulshada caafimaadka. waxaan joognaa Monday isniin ilaa jimce 8:00 subaxnimo ilaa 4:00 subaxnimo 4:00 galabnimo. nambarkuna waa 320-656-6625. haddaan ku celiyo af soomaali waa 3-2-eber-656-6625. halkaana way nala soo hadli karaan. marka maxaa la dhahdaayay calaamadahay noo sheegi karaan wixii guidance ma aha uun calaamadaha ku xiriirsan muxuu ahaa caafimaadka inay nagala soo hadlaan, hadday donation rabaan, haddii wax ka maad aragtay meesha ay la xidhiiri lahaayeen, hadday cunto ka go'do amba ay caawimaba u baahan yihiin wuxuu doona ha ahaadee resource baan u nahay inaan u gudbino meesha looga baahnaa. okay waaye aad baad u mahadsan tahay. dib waxaan ugu noqonaynaa kaahin baanu dib ugu noqonaynaa. kaahin waxaa noo socday aanu ka hadlaynay siyaabaha uu qofka macnihii xanuunaadka dhimirka gaar ahaan xanuunkan hadda cusub iyo saamaynta cabsida uu la iman karo. marka su-aal halkan aan raba inaan ku weydiiyo waxa weeye waa maxay cabsida guud ahaan ama keeni karaysa ama qofka laga oran karaaba? su-aashaas maxay kula tahay? dadka waxaa laga yaaba inay si u fahansanayn xanuunka cabsida halkan hadda su-aasha ku taallo macnii maxaad ka oran kartaa waxyaalaha baqdinta keena?
waxyaaba baqdinta keena waxyaaba badan baa baqdinta keeni kara aan saan hore uga hadlay waxa weeye waxaad adigu waxa jira ka cabsato oo baqdin kugu abuuri kara oon anigaygu abuuri karin laakiin inta badan haddii aan ka hadlayno bulshadeena Soomaaliyeed ama Soomaalida waxa weeye Soomaalidu dagaal bay soo martay oo mushkilado badan bay soo martay hadda ma taqaanaa dad badan baa hadda markay arkeen in dukaanada cuntadii laga gadanayo dukaanadii oo dhan la xaaqay oo cuntooyinkii la iibsanayo dad badan baa ma taqaanaa ay walaac badan iyo dhibaato badan ku abuurtay sababtoo ah dad badan baa soo maray mushkilada lamida taasoo kale anu Muqdisho ku dhashay dagaalkii Muqdisho 15 beri baan ku jirnay guri 15 beri kadib markaan ka baxnay guriga dadkii qaraabadii iyo ehelkii iyo dadkii mataqaana area-da deganaa jaarka ahaa ay cunto raadiyeen bakhaarada iyo dukaanadii suuqa qaarna waa la bilaqaystay qaarna way xidhnaayeen marka dadka mushkiladahaas oo kala soo maray markay maanta arkaan mushkiladda hadda jirta in dukaanadii cuntadii la kala boobayo oo mataqaana dadkii xataa wadankan u dhashay ay kii ugu jiraan cuntooyinkii dukaanada dadka qaarkood bay argagax ku abuuri kartaa iyo cabsi marka cabsida sida looga hortagi karaa waxa weeye in wacyigelin dadka loo sameeyo in mataqaanaa lagu xidho dadka mataqaanaa meelaha cuntooyinka laga qaato ama mataqaanaa meelaha communitiyada Soomaalida ay leeyihiin oo kale in cunto la dhigo sababta mushkiladda jirta waxa weeye hadda waxaa jira Catholic charity oo kale meel bay leeyihiin ay dadka cuntada uga qaybiyaan waxaa laga yaabaa cuntooyinka noocaas oo kale inay Soomaalida ayna cuni karin waxaa laga yaabaa in transportation ayna haysan waxaa laga yaabaa xataa language barriers inuu jiro luqadii aanay garanaynin oo mataqaanaa ayna xataa la xiriiri karin meeshay marka waxa muhiim ah in xaafadaha Soomaalida ay degan yihiin la cruise oo kale la baas oo kale in mataqaanaa laga sameeyo meelo cuntooyinka la dhigo si dadka Soomaalidu iyagoon gaari iyo luqad iyo aan waxba u baahnayn ay cuntooyin ay fahmi karayaan ama ay cuni karayaan ay ka raadsadaan si cabsida haysa iyo argagaxa ku jira loo yareeyo waaya ta kale xilligan hadda la joogo waxaa guryaha jooga caruur badan qoysaska Soomaalidana badideen waxaanu haysanaa caruuro tiraahaan ka badan dadka kale marka caruurtaasna waxaa laga yaabaa isfahmuwaa badan inuu ka dhex jiro iyaga iyo waalidiintooda cabsi iyo wareerna ay abuurto see loola hadli karaa caruurta oo kale ama loo dejin karaa iyaga naftigooda inay fahmaan xaaladda jirta caruurtu dhibaatooyinka sidan oo kale aad bay ugu nugul yihiin sababtoo ah mushkiladda jirta inta badan marka laga hadlayo traumada markay dadka ku dhacdo waxa la eegaa qofka da'du ahaa markay mushkiladu ku dhacday caruurta markay yaryihiin aad bay ugu nugul yihiin iminka adigoo kale hadday dhibaato kugu dhacdo qof weyn baa tahay waxa laga yaabaa inaad fahmi karayso laakiin ilmihii yaraa wixii ma fahmayo macna uma samaynayso hadda ilmihii yaraa markuu arko iyadoo suuqii la tegayo cuntooyinka la kala boobayo ama dadkiioo jahwareersan waxaa laga yaabaa caruurtii inayna fahmaynin ilaa maxaa taloo jira innaga mujtamaca Soomaalidana inta badan waxba ma fasirno caruurta lama fadhiisano lama hadalno uma sheekayno wax ma fahansiino marka muhiimadda ugu weyn waxa weyn caruurta lala sheekaysto la yiraahdo maxaad dareemaysaa maxaad su'aalo ma ka qabtaa mushkiladahan jira oo si degan oo cilmiyeysan oo levelkoodii iyo da'dooda ma aragtay ku nidaamsan oo ku dhisan in loola hadlo weeye oo loogu fasiro wax la yiraahdo xanuunkan ugu jira dadkana uu saameeya aan gacmaha iska mayd banaanka haddaad u baxda meelaha taaban qof salaamin oo mataqaanaa loo sheego si wanaagsan oo mataqaanaa degan loogu sharaxo aanan loo dejiyo mataqaanaa si degan wax loogu fasiro waa yahay waxaan rabaa su-aashaas iyaga naftigeeda inbutka ama fikirkiina waalidiin baa tihiin Huda iyo Hani waana ogtihiin dhammaantiin waalidiin baan nahay stresska ama cadaadiska maskaxeed ee caruurta haysta qaarkood baa ay kula dagaalamayaan in fahmi karaynin sababta guriga ay ugu xiran yihiin oo meelna ay u dhaqaaqi karaynin waxaan maqlayay iskuulaadka haddaad information dheeraada ka haysaan inay qaarkood yidhahdeen waxaan bilaabaynaa waxbarashadii oo qaab online aan ku bilaabaynaa oo caruurta waxaa guriga loogu soo dirayaa balaankii casharada macallimiintana ay duubayaan marka ka waalidiin ahaan maxaad
taladiina ay tahay ama waalidiinta kale tala aad siin lahaydeen hudda aan kugu bilaabo say u aragtaa arrimaha caruurta guriga ku xiran oo aan haysan wax ay qabtaan ama camala wallaahi horta maad aragtay ilaahay ubadka ha noo daayay is not easy and I say that because afar baan haystaa alxamdulillah labadayda waaweyn oo kale it's easier inaan manage gareeyo oon waqti u sameeyo inay wax kala qabtaan sida guriga inay iga caawiyaan maxaa la yidhahdaa waqti inaan banaanka u yaro bixiyo oo gurigayga banaankiisa yar ay kubad ku soo ciyaaraan laakiin markay ilmihii badan yihiin way adag tahay inaa waalidkiina dee imanka anaga waddankan aan ku kornay oo maad aragtay structurekii waqti kasta inaan wax la sameeyo ahaan baa lana baray oo xataa haddaan gurigii joogno maad aragtay waxaan dareemayaa wax inay iga qaldan yihiin haddaanan mar walba wax aanan samaynaynin so waxaa ilmuhu inuu structurekii 8:00 iskuulka class buu bilaabayay halkanuu waqtigaasoo cunteynayay waqtigaasoo haddana qadaynayay laakiin gurigii markuu joogo hadduu 24/7 TV hor fadhiyo ilmihii noloshiisii macno uma samaynayso haddii aad tidhaahdid hal mar baan ku xanaaqayaayoon maad aragtay waxaan oo dhan ka daminayaana idinkiibaa iska hor imanaya oo clash baa meeshii imanaysa so ani waalid ahaan hooye ahaan waxay aan sameeyey ee ii shaqeeyey waxaa ka mid a in aan markaan subaxii kale aan ka shaqo tagayo inaan schedule siiyo oo idhaahdo okay adigu musqushaa ku qoran tahay adigu jikadaa ku qoran tahay qolkiina inaad nadiifisiin dharkiina inaad dhaqatiin and then intaas iyo intaasna TV time baa haysatiin inta electronic time baad haysatiin ama video game ku ciyaara amba iPad daawada waqtigaas marka la gaarana alaabtiina inta soo xareysiin khaanadeeda iyo gurida qolka hurdada and so kana like waxay siisay arrintu marka way caawisay inay mashquulaan ayagu naftoodana ay dareemaan inay wax qabteen maadaama ay shaqadii guriga wax ka qabteen arrinta anigu naftigayga waan ku fikiray in ilmaha loo sameeyo maadaama ilmuhu iskuul tegi jiray oo ilmuhu schedule uu lahaa in loo sameeyo schedule hadhowtina lagu abaalmariyo oo la yiraahdo wax wanaagsan baad samaysay haddaad weel ka dhaqday haddaad guriga hagaajisay ahani maxay kula tahay adiga caruurta dadkeena Soomaalida ah in loo sameeyo guri gudihiisa qorshe suusan ilmuhu u dareemin cidlo ama uusan ugu dhicin waxyaalaha qaarkood horta online schoolkan hadda bilaabanaya isniintu bilaabanaya aad ayay ugu adkaanaysaa waalidiinta oo dhan Soomaali waalidiin badan computer iyo laptop iyo guriga ku haystaan waalidiinta dhan Soomaali ama Soomaali ahaan way ku adkaanaysaa laakiin dadkii maamooyinkii Soomaalida oo dee luqadiina garaneen si gaar ahaan ugu sii adkaanaysaa iyaga marka waxyaalaha aniga hadda ii shaqeeya aan sameynayo waxa weeyaan habeen kasta ciyaalkii isku waqtiga seexdaan subax kasta isku waqtiga soo kacaan sidii iskuulan aadeen oo kale waqtiga iskuulkaas ma bedelin habeen kasta 8:30 bay seexdaan subax kasta 7 bay soo kacaan way quraacdaan 8:00na waa la wada fariistaa qof kasta tabletkiisa ama device-ki iskuulka laga soo siiyey ama guriga laptopkii cashir baan wada dhiganaa annagoo dhan waa la wada fariistaa marka muhiimadda waxa weeyaan waa inaad ka dhigtaayoo kale inuu weli iskuulka saacadihiisi jiro oo schedule aasiisid waqtigii recesska ama banaanka breakga la siinayana aad u yar ogolaatid inkastoo hadda aan ku wada jirno social distancing waxa la dhaho guriga lagu wada xiran yahay familiyaasha socod way wada aadi karaan banaanku ku soo yar socon karaan iyagoo dadna u dhawaan dadna salaamin dadna la hadlin way isla soo wada socon karaan si oo break ama recess ay u helaan weekendiga dee wixii ay samayn jireen freedomkoodii waxoodii waa la iska siin karaa laakiin intuu iskuulka wiigi jiro waa inaad ka dhigtaa inuu iskuul jiro saacadihii la ilaaliyaa maadaama dadku hadda guryaha joogaan meelahan baarkiga oo kale ma la tegi karaa dadku lama tegi karo socod waad socon kartaa jidka meesha socodka loogu talagalay inaad la lugeeyo waad lugeyn kartaa laakiin baarkii lagu soo ciyaarsiinaya waa la joojiyey because baarkii waa la taataabanaya caruurihii waxaa la ilaalinayaa taataabashadan badan dadka ay wax intay taabtaan haddana qof kale uu taabto laakiin adi iyo caruurtaada waad israaci kartiin la soo lugeyn kartiin xaafadiina waad soo noqon kartiin idinkoo dee dadna qaraabo salaam iyo waxyaalaha tagin intaa waa la sameyn karaa sida dee caruurtii maanta dhan guriga ugu jirin wax kaloo aan sameyno waxa weeyaan subax kaste daaqadaha daahan ka furaa si oo qoraxdii guriga u soo gasho ilmihiina ay u dareemaan waa maalin maanta hadduu maanta dhan daahii daaqadii ku xiran yahay gurigii waa mugdi ciyaalkii ma kala garanayaan marka maalinii habeen
maybe waxaa laga yaabaa duhurkii camal inay dareemaan maalintii inay bilaabatay marka aaday u muhiim u tahay markaad soo kacdiin subaxii daaha ka leexi daaqada qoraxda nalkeeda ha soo gasho halisla wada quraacda hal mar nacam saacadaha oo cuntada la cunayay hala ilaaliyo si uu ilmihii structure ama waqti go-aana uu helo okay waayahay waxaan rabaa inaan dib ugu soo noqdo kaahin dabcan waxaa laga hadlayaa hadda waalidiinta waxaanu ognahay kiis waxaa jira hadda kahor aan wax ka ogaa hooyo qof da-yar ahayd 4 caruura dhowr caruura guri keligeed ku haysay muddo markay joogtay weligii dibadda ma aadi jirin caruurtii bay ku wareertay marka dhakhtar baa waraystay dhakhtarkii wuxuu yidhi dhimirka xanuunkaaga dhimirkaba wuxuu la xidhiidhaa gurigaad ku xiran tahay iyo caruurtan aad guriga keliga ku haysay marka su-aal isweydiin mudan baa halkan waxay tahay xilligan sida mararka badanna dhacda waxaa dhaci karta hooyo keligeed inay 8 caruura guri keligeed kula xiran tahay xilligan adag maxaad xagga suusan u dhicin inuu qofkii iyo caruurtii waadna ogtahay caruurta hadday afar kugu qayliso waad isla waalanaysaan in waalidku asaga naftigiisa ama hooyadu ay nafteeda daryeesho oo ayada naftigeeda nafsadeeda ay ka fikirto in ka badan yani wareerka caruurtan bay leeyihiin gaaraha soomaalidan self care sidii hudiyo hani sheegeen waa muhiim ma aragtay in qofku uu gurigiisu qorsho yeesho nidaam u sameeyo marka hore talabaad waxa weeye anigu waxaan u arkaa fursad inay tahay sababta inaga soomaalideena ma aragtay dad casho wada cuna ma nihin dad qada wada cuna ma nihin weligay ma arag reer soomaali oo isku wada yimid oo aabihii iyo hooyadii iyo ayeydii iyo dhammaan sida hindidii caddaanku hal meel wax ku wada cunaya oo yar tahay ma lihin dhaqankaas inta badan anu waxaan u arkaa inay fursad tahay sababta waxa weeye waqtigani waxa weeye waqtigaad caruurtaada baran lahayd eed isbaran lahaydeen 2013kii aan soomaaliya ku laabtay waxayd markii ugu horreysay aabbahay anigu aad baan relationshipkayga aad buu fiican yani aabbahay markii ugu horreysay waxaad aan la fadhiistay noloshiisa ka waraystay ilaa maalintuu dhashay ilaa hadda waxaan ka qoray mataqaanaa 6 page baan ka qoray noloshiisa waxyaabuhu iiga sheekeeyey waxyaabaha hadda anigu aan sameeyey weye markuu da-dayda ahaa markuu da-daydoo kale waxyaabuhu sameynay aniga laftiga yaabay markaan waraystay marka waktigani waxa weye waktigii caruurtaada aad baran lahayd aad la sheekaysan lahayd eed saaxiib la noqon lahayd ta kale aad fiirin lahayd waxay bartaan sababto inta badan inagu ma fiirino ilmahaaga waxaa laga yaada inuu high school ku jiro ilaa maalintu elementary ahaa ilaa maanta inaad wax laxo dhigtaa inaad garanaynin maalin dhaweed nin baan suuqa ku arkay markaasuu yidhi niyow gurigaan ku xidhnaa laakiin aad iyo aad baan u faraxsanahay saan kuri niyow dadka o dhan depression baa ku dhacay adiga maxaa kaa farxiyey wuxuu yidhi subaxdii caruurtayda oo anigoo hurday caruurtayda iskuulka tagaanay baxan galabtiina waxay soo noqdaan buu yidhi oo iskuul ka yimaadaan anigoo maqan habeenkiina waxaan guriga imaadaa buu yidhi iyagoo hurda weekendkiina waan shaqeeyaa waa markii ugu horreysay ee aniga iyo xaaskayga iyo caruurtan cunto wada cunno guri wada joogno haddi wuxuu noloshaydaabaan rabaa inaan wax ka bedelo marka waktigani waxaa laga yaabaa inuu yahay mataqaana waktigaad naftaada dib ugu noqon lahayd re-evaluate yourself self reflection aad mataqaanaa fiilin lahayd familigayga maxaan ka bedeli karaa noloshayda maxaan ka bedeli karaa mushkilada way jirtaa oo mataqaana cabsi baa jirta laakiin jaaniska hadda aynu haysano inaan ka faa'iidaysano weye hataa dad rabta inaad anigoo kale hadda 5 salaadood oo kale waan shaqaynay oo igu adkaa inaan on time ku tukado hadda 5 salaadood waan tukadaa sidaan ku tukado 5 salaadood marka waxaa laga yaabaa qof sidoo kale inuu jiray oo rabay 5 salaadood inuu tukado marka waxa weeye hadda waxaad leedahay cabsina waa jirtaa jaanis waa inaad jaanisna wuu jiraa ta kale socodkay hude iyo hani sheegeen laftigiisu waa muhiim qofku inuu guriga ka baxo daaqadaha furo sidii qof shaqo tegayoo kale routiinkiisii awalba lahaa qofku siduu subax awalba markii uu shaqaynayay wuxuu samayn jiray inuu sameeyo wey uu subaxdii soo kaco siduu quraacan jiray u quraacdo daaqadaha furo u soo lugeeyo bannaanka u baxo tacaruurta in la kaxeeyo lasoo lugaysiiyo maa meelaha beeraha dad ku badan in la geeya maa laakiin mataqaanaa gurigaaga eeriyadiisaas waad ku soo wareejin kartaa waxaan rabaa wax yar inaan ku weydiiyo waxaan arkaya muuqaal ee waddanka China laga soo duubay oo ay xanuunkii markii dadkii saameyn badan uu ku yeeshay ayay waxay bilaabeen in dadka xataa moral ahaan loo dhiirigeliyo
oo qofkii inkastoo cusbitaal uu ku jiro ama uu karantiin uu yahay la tuso inay jimci sameeyaan ama muusig loo shido qofka niyadiisii farxad ahaan in loo geliyo maadaama xilligan xilli adag lagu jiro muhiimadintee leegleda qofka inuu rajo isgeliyo qur-aan dhagaysatid sidaa sheegtay annagu siyaabo gaaraan isu daweynaa salaadii aad tukatid maskaxdaada aad gelisid noloshii waa caadi quraacdii reerka ma garanaysa muhiimadintee laga qaadataa qofka inuu niyadiisa hagaajisto caafimaadka maskax ahaaneed waa muhiim aad iyo aad like physical health iyo mental health mataqaanaa waa laba isku mida weeye marka mataqaanaa waxa weeye qofka ibni aadankii hadduu maskixiyan u xanuunsado physicalina wuu xanuunsanayaa marka waxa weeye waa muhiim qofku ma aragtay inuu waxyaabaha fikradihiisa ama fikradaha xun maskaxdiisa ku keenaya inuu iska ilaaliyo uu mataqaanaa la socdo way fiican tahay mararka qaarkood marka mushkiladu ay yimaadaana dadku inta badan diintooda ay u laabtaan diinta laftigeedu waa muhiim oo mataqaanaa in diinta loo laabto la fahmo waxaanay qadar ilaahay buu ku yimid wax kastaana qadar ilaahay buu ku dhacayaa ta kale soomaalida mushkilada badan baa kusoo dhacoon kasoo badbaadnay tanna intuu ilaahay qoran baa ku dhimanaysa inta kalena way ka badbaadaysa marka qofku inuu qadarka ilaahay aamino ta kale dhib inaga keliya ta soomaalihaan nagu dhacday maaha waa dhib mujtamaca caalamka oo dhan ku dhacdo laynala qabo ta kale inaga inteenna wadankan maanta joogta maraykanka ee soomaalidii waynu ka nasiib fiicannahay dadka soomaaliya jooga oo maanta kuwaasaa u baahan in loo duceeyo oon qalab caafimaad iyo dhakhaatiir fiican iyo dowlad adag oo xataa caawinaysa aanan haysan laakiin inagu at least halkan waxaynu haysanaa qalabkii iyo caafimaadkii iyo dhakhaatiirtii waynu haysanaa iyo dowlad dhisan ayaynu haysanaa marka murugada iyo mataqaanaa welwelka iyo cabsidu way jirtaa laakiin in mataqaanaa laga badbadiyo maaha ta kale warar badanoo waxaa jira in toonta iyo liindhanaanta iyo mataqaanaa barfuum la isku buufiye iyo ay joojinayaan mataqaanaa xanuunkan coronavirus oo dadkii xataa buufis ku sii riday dadkii kiilooyo toona suuqa ka gadanaya waxaa laga yaaba waxyaabahaas xataa inay mataqaanaa hadhow caafimaad darro ku keenaan mataqaanaa xanuuno ku keenaan markaad 1500 wax iska dabageysadooda cunto aanad jidhkaaga u baahnayn oona faytamiin aanad u baahnayn aad qaadato inuu mushkilad ku keena xataa dhici karta waxaan arkay maalin dhaweyd ku xanuunkan wax dawo uu leeyahay oo hadda la hayo ma jiro wax kaa ilaalinayo dawo ana ma jirto waxa ugu fiican oo kaa ilaalinaya inaad gacmaha iska dhaqdid iyo inaad social distancing samaysid oo gurigaaga iska dhex joogtid those are the only labada wax oo kaa celinayo toonta aragtid malabka aragtid ka cuncun laakiin nacam wax faa'iido oo xanuunkan uu kaaga celinayo kuma jiro waxaan arkay maalin nin isku daray 4 shay oo aan aad weligii aan arkin wax isku daraya marka social media aniga naftayga dad badan baa soo diray waa toonta waa liindhanaan malab iyo xabasowda marka sidaa sheegtay iyaga naftooda marka qaarkood kiimika nooc kala samayn karaya aniga naftigayga dadka isku dayaba nafta laakiin dadka qaar waxay qabaan hadda liin dhanaanta oo kale vitamin C inay leedahay toonta oo kale inay leedahay waxyaalaha la dagaalama viruska oo kale marka qofku waa iska isticmaali karaa laakiin anigu naftigay isku dhex dardarka waxaan isiri wadanka wad ogtahay xataa maanta hadduu qof dawo helo ama viruska naftigiisa laga hadlaya haddii talaalka lasoo saaro ilaa uu trial maro ilaa la tijaabiyo ilaa dowladdu ay xaqiijiso ay tiraahdo waxani waa talaal ama waa dawo cidna iskama isticmaali karto marka wax aanan la hubin in maxaan ku rahdaa la yidhahdo dadku waa dawo uga hortago horta wixii dabiiciga ah maad aragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxyaabo badan uu recommendation ahaan inoo siiyey cilaaj inuu inoo siiyey baa jirta sida maxaan dhahdaa xabata soodada malabka toonta so qofka biniaadanka wuxuu isagu maad aragtay cilaajaada uu rabo inuu isticmaalo wuu isticmaali karaa just laakiin maskaxdaada ha ka dhaadhicin waxaan keliya taa haddaan cuno xanuunkan iguma dhacayaan buu iga hortegaya vitamin C everyday baad u baahan tahay maaha uun waqtiga imika ahaan markuu cold season jiro oo dhanba maad aragtay in aad maxaa la yidhaahdaye aad qaadatid fitaminadaada weliba especially haddaad maxaa dhahdaa qof weyn tahay soomaalida inta badan vitamin D gu inagu yaryahay because cadceed badan ma helno oo dee dhar baan ka dul xidhannahay oo cadceedda jirkeena ma gelayso so those vitamins are good for you markasta inaad maintain garaysid laakiin hadda yaana lagaa faa'iidaysan oo maad aragtay wax ana jirin ama wax haddii maanta wax keliyata lagu yidhaahdo waxaana coronavirus u maad aragtay
u fiican baa layidhi qaado inaanu qof walba wixii auna odhan waxaana coronavirus u qaadano maanta dhan suuqa ka soo raadin waxaa kaaga fiican adoo gacmahaaga dhaqo gurigaaga fadhiya waayahay su-aasha ugu dambaysaan jeclahay kaahin inaan ku weydiiyo gabdhahanu aan kulley fikirkooda iyo taladooda maadaama aanu qaybta barnaamijkan aan maanta kaga hadlayno saamaynta xagga maskaxda ay ku abuuri karto cabsidan ama waxaan maanta jira waxaan rabaa siyaabaha ama tipska layskaga dhimi karo stresska qaar ka mida waad sheegteen inuu qofka siiro socdo qaar ka mida inuu qofka hadduu diintu aaminsanaa islaam oo kale tukatid ama ilaahay caabudid oo kale waa waxyaalaha dhimaya marka maxaad la wadaagi kartaa dadka waxyaalaha dhima ee qofka inuu isku buuqo keligii waxa weeye ta ugu muhiimsan waxa weeye mataqaanaa biological ahaan ibni aadanka mataqaanaa ilaahay nooma sameyn inaan keli noqono saasuu ilaahay u sameeyey wax kasta xayawaanka xataa labiyo dhidig ilaahay inooma sameynin caadi ahaanba inaynu keli noqono marka in qofku uu dadka la xidhiidho oo mataqaanaa haddii aanan dadkii arki karaynin like Facebook baa jira hadda waxaa jira FaceTime baa jira Snapchat baa jira Skype baa jira Zoom baa jira marka inaad dadkii la xidhiidho weliba inaad FaceTime aad samayso saa dadkii wejigooda u aragto isku aragtaan waa muhiim like maalintii haddii aad samayn karto 2 jeer ama qof kastoo familiga ka mid ah haddii FaceTime ama Facebook marka qofkii familka ahaa ama waalidka ahaa ama walaalka ay meel degana hana goyni laakiin isku day inaad FaceTime ka wado maalin kasta haddii facekiisa aad arki karto wada qosli kartaan wada sheekaysan kartaan waa arrin aad iyo aad waa muhiim weeyaan aan qofkii samayn karaa inuu sameeyo xataa hadduuna mataqaanaa dad ehela ama qaraaba aanu lahayn kolley waxa laga inuu asxaab leeyahay qofkii inuu asxaabtiisii la sheekaystaa una marnaba keli noqon way fiican tahay marka hadda maalin dhaweed waxaa laga hadlayay kelmadda la yidhaahdo social distance ma aragtay in la bedelo oo lagu bedelo physical distance because social distance waxay noqonaysaa mataqaanaa inaad dadka ka fogaatidba dad baa qalad u fahmay marka physically inaan kala fogaano weeye laakiin socially inaan isku xidhnaano marka isku xidhnaanshaha waxa weeye email dadka u dir tags message u dir xataa dad aanad muddo la hadal la xidhiidh dadka ka warhay in salaada iyo quraanka ku dadaal guriga daaqadaha fur subaxdii sidii awalba aad samayn jirtay subax kasta markaad soo kacdo waxba ha ka bedeli hana rajo beelin adduunka ilaahay baa gacanta ku haya wax kasta ilaahay qadartiisay ku dhacaan isilaali ta kale cuntadaadana ilaaliso ta mararka qaarkood hadda waxaa dhaca dadku inay maadaama ayna shaqaynaa habeen oo dhan soo jeedaan habeen oo dhan TV la daawado cunto fiican aan la cunin maalin oo dhan la hurdo taa laftigeeda waxaa laga caafimaadkaaga inay xudhinto stresskaaga inay kordhiso marka pay attention caafimaadkaaga biyahaaga cuntadaada hurdadaada waxyaabahaasoo dhan muuqaal baan arkaya maanta nin dadka physical fitnesska ka caawiya uu leeyahay xilligan uu jiro 2 arrimood baa uu muhiima marka ka hadlaya inaad qof guriga gudihiisa xataa aad ku samayn kartid jimicsi marar badan waxaanu maqalnay inkastoo dadka da'da yar leh ay ka fursad badan yihiin haddana dadka ama orda ama wadnahoodii iyo sanbabadoodii fiican yihiin inay sarfaaf marka waxaad leedahay qofku inuu exercise-kii iyo cuntadii wixii aad sii wadatid waa muhiim waan sameeyaa anigu subax kasta salaada subax markaan adigoo gurigaaga jooga salaada subax markaan tukadaan quraan akhriyo push up baan sameeyaa 20 push up waxaa kugu xigi doontaan malaynaya next time kana 20 YouTube-ka yani next time ku arki doonaa ayagoo 20 anaga iyalkan ka daba ordayno baa exercise noo ku filan ma adoo gurigaaga joogtid maamooyinka waxaa jira YouTube videos badan xitaa maamooyin Soomaali oo YouTube-ka jimicsi ku sameynaya qofka markuu jimicsi sameeyo jirkiisa wuxuu soo daaynayaa chemical oo la dhaho endorphins chemicalkaas maskaxdaada markuu aado waa chemical dadka happy ka dhigo ama farxad ku siinayo oo kale marka muhiimadda habeen kasta isku saacad seexo subax kasta isku saacad soo kax wiigi 3 maalin isku day inaa exercise ugu yaraan 30 daqiiqo samaysid adigoo fadhigaaga jooga YouTube-ka ka daawo ama iska boodbood caruurtaada la ciyaar waxyaalo badan aad samayn kartid aa jiro farxadda physical fitnesska iyo maskaxda way isku xiran yihiin waxaasoo dhan markaad exercise samaysid maskaxdana waad ka dareemaysaa okay maxaa kaloo ku dari lahayd kaahin xagga sidayaabaha loo dhimo cadaadiskaas ama stresska maskaxda barnaamijka maadaama gabagabadii aanu sida wax akhriska laftigiisuu fiican yahay wax akhriska laftigiisa qofku inuu akhriyo oo mataqaanaa waxaa jira in waxaad akhrin kartaa gabayoo kale aad akhrin kartaa nafta dejinaya qur-aankoo kale dadka uu dejiyaa
marka inaad hesho wax mataqaanaa buug ama waxaad akhrin karto oo ku dejin karaa ta kale inaad iska ilaaliso hadda waxa dhacday waxaad markasta waxaa kuu soo galaya email coronavirus baa ka dhacay Italy oo 30 buu dilay China 40 ku dilay dadka buu buuminaya dadkii ahaa marka waxyaabahaas oo kale mataqaanaa waxa laga yaabaa stress inay kugu sii badiyaan waxyaabo warwarkan ay kugu sii badinayaan marka waxyaabahaas oo melihii mataqaanaa dhagalaan hay isku ridin adduunka la soco warka la soco laakiin saacadaha qaarkood mataqaanaa waxaan maaha inuu noqdo 24 saacadood wax isdaba socdo inuu noqdo ma iska xidh waqtiyada qaarkood iska xidh wax akhriso in mataqaanaa family time familygaaga caruurtaada la sheekayso markaad u baahato inaad warka eegtana eeg maalintii 2 mar 3 mar laakiin inay noqonin wax 24 hours noloshaadii ka mid noqday inay noqon sababto caafimaadkaaga uma fiicna waayahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidoo kale maalin dhaweed waxaan daawanay nin dhallinyaro ah oo xanuunkan ka badbaaday waxyaalaha oo markaa asaga naftigiisa ka hadlay wuxuu inuu wakhtigiisa inta uu xanuunsanaa maadaama guri uu keligii ku jiray waxyaalihii koowaad uu samayn jiray inuu ahaa nafsadiisa in uu ka jeedin jiray inuu xanuunsan yahay qaar ka mid waxyaaluhu ka hadlayn waxaaba ka mid ah inuu wax akhrin badan uu samayn jiray si uu maskaxdiisa u looysiiyo inuu xanuunsan yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin maxaa dheeraada aad ku daraysaan bulshada aad ogeysiinaysaan magaalada hudda iyo gaar ahaan iyo hani adiga naftigaaga kaahin haddii dadka ay u baahdaan inay kula hadlaan ama ku yimaadaan xaggee kaala soo xiriiri karaa number baan rabay inaan la wadaago dadka markaa numberku waxa weeye 32 eber 4 eber 6 4 eber 33 markaa numberkaa way soo wici karaan haddii qofku uu dareemo warwar badan ama murugo badan oo aanu controli karin hadduu qofku dareemo uuna la soo xiriiraya markaa waxaan ku xidhaynaa qof caawiya hal waxaan kugu darsado haddii nacma aad dareemaysid wax noloshaada halis ku ah ama dee haddii noloshaada halis ku jirto markasta waa inaad 911 wacdaa laakiin haddaa u baahan tahay in dhakhtar lagula xiriiriyo ama lagaa caawiyo arrimaha cabsida badan fadlan kaahin soo wac anigu waxaan ku darsanayaa hooyooyinkeena Soomaaliyeed especially maad aragtay iminka ilmihii guriga inoo joogaan stress badan baa jira oo maxaa la yiraahdaa hooyadii maanta oo dhan ilmihii jika ugu jirto haddana iminka waalidiinta waxaa la yidhi macallimiin baa noqdo oo starting Monday macallinimadii baan ku darsanaynaa shaqadii awal hayne marka it's really important inay hooyada laftigeegu nafteeda time siiso oo ay waqtiisa siiso taas hadday noqoto inay ilmaha hore iskaga seexiso oo iyadu 1 hour 2 hour before ayna seexan ay waqti isa siiso oo self care isku samayso amba maad aragtay asxaabteeda hawaada amba familka hawaada amba iyadu nafteeda hana isnaashnaashto oo iyadu waqti iyada u gaar ah oo shakhsiyanteeda gaar u ah inay isa siiso aad bay u muhiim tahay it just helps markay adiga qofkii weynaa markaad maad aragtay 100% aad present tahay way ka fiican tahay marka adoo daalan oo rafaadsan hadana ilmihii ay kugu kor qayliyaan de bini'aadanka maskaxdiisuna in waxay qaadi kartaa waa wax limid ah marka hooyo Soomaaliyeed insha Allah waxaan waa laga baxayaa istakargareeya naftiina ha iloobina maxaa la dhahdaa in hanging there waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan xasuustaa muddadii aan St. Cloud deganaa 12 sano ka hor iyadoo aan center care iyo Streams County cidna Soomaaliya u shaqayn aad baan ugu faraxsanahay maanta inay dad badan joogaan oo maxaan ku raahdaa Soomaaliya nurses leh dad dhaqaatiir leh iyo maamulkiisaba dad ka tirsanba inay cusbitaalka ay ka shaqaynayaan waliba xilligan adag oo jira anigu naftigayga studio-ga baryahan waa ka gabadaa laakiin maadaama aan mas'uuliyad naga saarantahay inaan bulshadeena wacyi gelin oo ognahay nurses badan iyo dhaqaatiir badan baa xanuunkan iyaga naftooda dhibaato ka soo gaartay sababta meel aad uga carartid malaha bulshadii marka anaga naftigeena media oo ku qasbanahay inaan dadkii wacyi gelino oo taasa xilligan meesha nagu haysa aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha Allah barnaamijkan qofka raba inuu su'aal aniga ii soo gudbiyo saan barnaamijyada soo socda aan u weydiiyo numberka Facebooka ku xiran waa 612-232-3866 ma idinla tahay xilli inaanu qorshaysan karno isbuucii hal maalin ama 2 mar hani inaanu barnaamijkan isku nimaadno aan ka hadalno intay arrimahan socdaan haddii ilaahay inta la nool yahay xilligee bay idinla tahay si ay dadka u ogaadaan xilliga uu barnaamijkan aanu duubno si ay su'aalaha noo soo weydiiyaan hani waxaa ila haboon khamiis kasta habeenkii xilligan oo kale
anigaba mataqaana khamiis waaya insha allah waxaan rabnaa inaan xilli go-aan aad ogaataan inuu barnaamijkan uu raadiyaha ka soo gelayo dhinaca facebook aan isku dayi doono markaa live inaan stream ahaan aan idiin sameyno barnaamijyadii horena insha allah waa ka saaraya si barnaamijkan cusub aan u gelino waa barnaamijkii saddexaad oon hadda samaynayno intuu xanuunkan uu socday aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin waan idinka mahad celinayaa gaar ahaan kaahin oo isagana maanta nagu soo biiray kuna soo dhowow magaalada St Cloud waxaan malaynayaa magaalo weyn baa ka tanweynaya kugu yaraa meesha axmed walaalo waad mahadsantahay adiguna fursadan aad nasiisid mar walba aad maxaa dhahday community-ga garab taagantahay aad iyo aad baa u mahadsantahay waaya intaas ayuu barnaamijkan ku egyahay maanta inta aanu barnaamij kale aanu uga kulmi doono waxaan idin rajaynaynaa meel walbo aad joogtaan sida ay dhaqaatiirta iyo ku nugula taliyeen inaad nafsadiina aad xanaanaysaan waqti